nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino arnimaya hali wal yaabi yaaba kulusreedana ma iliya badnaayay kuriya may bahaska gooy heesta huriid soo rooga beledweyne meelilay ma erika saasanaysan goorma ladnaanaye lehdankii lugooyadii la deydaye بدل وريا بدل ما تقانت هيستا نغا دغيسا نغا غورمان اسلايناي سغاشنكي نيقان لوغوناي سيدي لاباتن سنه war xalay muqdisho farmaajo u shidneed war ma ay sida xalay dhuusamareeb khayray u shidneed war naga taga hargeysa musabix bay u shidneed warba ana qabaatoobi xalay waada noo shidaaneed war codkaan ina xageen nooga yimid adeer fad ama ha fadin walay wala qufadasiin war madaysaaqow ninkan dadii ka yareed miya wardeedii oo yaraaytay ma fadmas an faday walka fadsiyad bililgi oo ka haysada war ma haysaanay dabaaldaga xorriyadana kaba adna qayb gelini na dhageysta inaga gobolka banaadir xala saylici iyo batara lagu ciyaaray shiribkiina dibaa loo dhigo waqtiga ka dhamaaday muqdisho hadii shirib yaa gadaalendaki ali meelan ku waraabi jirnaa ku waraabi war hada waxaan ka iri miya lagu dheelo arrooya xaajirina ma dibaa loo dhigay war waxa xalay dib loo dhigay war rasaastii la ridi jiray bulla leeyahay noo shidneed magaaladu war rasaastii ka go'damiya tiri warkaan naga dhex gelinina dad maranaatihiin xala madaxweynuhu waa ka qudbeeyay munaasabada xurriyadda wuxuuna yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in wada hadalkii dib loo soo celiyo marka waxaan la yaabana madaxweynaha isaga la doorto mas'uuliyadda loo dhiibay yaa waay cid ugu baaqayaa inay wada hadalka soo celiyaan marka waxaan dhiilaa maalin baa la doorto dalka maamulkiisa iyo majaraha u dhiibnay goorma laga meershi war ma haysida waa Muuse Biixi qofkii xalay ka qudbeeyay xaflad ka dhacaysa magaalada Hargeysa wuxuuna yiri wada hadalkii waxa hortaagan dawladda Soomaaliya wuxuu sii raaciyay masirka yaga Soomaaliya kala hadlayne beesha caalamkan uu kala hadli doonaa marka anigu waxaan la yaabanahay Soomaaliya hortaagan ya kala hadli mayno sidoo isku qabadsiiyay war Muuse Biixi farmaajo waxaan ku talan lahaa inay mikrofoonka iska dhaafaan war waa inqilaab waxaagu yaa dalka xukuumaya haday aamusaan war wuxuu ku yiri wax kastoon iraahdaba hadii laga xanaaqayo mikrofoonka nicilaha gabi ahaantiisa mana hadal jeclaadeena waan aamusi lahaay intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badin war ma haysiine xalay dabaaldegi 26 Juun ee Muqdisho wariyaal baa lagu jirdilay war hoob wariyaalka leeyba jirdilayaan may uniyo awlaadano goorma ladnaanay ninka dhafariyaan warnimayaanu waxaan la yaabanahay wariyaasha meeshii xaflada oo farxad oo lagu dabaaldegay hadii lagu jirdilo meeshii qarax ka dhaco balaaya ka jirtana lagu jirdilo xagee ku nabadgelayaan warnimiya wariyaasha hees cusub laga rabaa heestaasna waxay leedahay anaka waa nala jirdilay afkani baa joogda gabay war ninkii helaa talo wacan hele wariyaha xaq dhowr dhaydkeedii ma dhacay war tabaralanku waa in mantun dhegama leh margareed afkii baa joogda gabay war ma haysiine meesha ay xalay ka shidneed waa dhuusamareeb horta nima waxaan la yaabanahay kalamaan ma gudoomiye Xiiso baa ku soo biiray halkaas ay ka shidneed badana warnaga aamus hees la yiraahdo yartu waa shidantaa jirtee warka naga dhaxgalin inayna dhageysta ra'iisul wasaare khayr xalay markuu ka hadlay xafladii dabaaldega waxa uu yiri dhulka gaduudan oo arkaysiin dayman baa dhex yaal wabina waa hoos mara in magal nimanti arlaada ka faafan meelika naga fade warkaaga ma fahmin in dhageyso waxa uu na tiriyay geerarkii Cabdullaahi Sultaan Bacde ee sareeyo manusqaamo aan sidoo yahay eegno ka nasiib ka nasaar haddana wuxuu sii socdaa magaalada Cadaado marka galmudug gacantiisa bay gashay sidii muuqata war hadda ka ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri barwaaqan idin soo arkay reer galmudugna wuxuu yiri dekada hobyo asbuucan gudihiisaan dhismeeda idin bilaabaya marka taasiba dahir gali weysay hadda reer galmudug dheeman dhulka ka hooseysa miyay ka sugayaan war adeer warkaas xaafa lugtu ku dhuftay war xalay xaaf xamar soo weerarine bulalar bay ahaayeen ciidamada difaaca irku maxay
hawada u tabxiri waayeen marka war horta liman yahawow xali beledweyne waxaa ka dhacday xafladda 26 juun ka dhacday hadda madaxweyne waarana ma tagin yuusuf dabageedna ma tagin yaa loo dhiga marka xafladda wastima cadda ma yimid war ciidamada Jabuuti ahil walaal ka qayb galay war qori waa kuwaysin anaga marka wadagaysanaysa amus waa barreto baska walda dakari ya maro shani waxay warabaan wali waraba uli anta waa ka qayn maamuli ya madaxtini mada dalka waa ka waraba ma qarabta afkamidi soo waa sameeyay wala soo waa ku fahamna waa faashay lamat wala soo qabqabti inta kale wala qota bajira shaqada shahta wala ka soo bina wariya wareedahay muxuu yiraahday Axmed maraakiibta hadda badda soo gaarayaan miyuu yiri abtaadi waa ka dhacsantaa ma shidinid war wakiilka cusub ee qaramada midowga Soomaaliya waa yimid marka galmudug iyo Jubbaland miyuu ku fashilmi doonaa ama nabad iyo nolol waa isfahmi doonaan war nabad iyo nolol wakiil dambe qaramada midowga hadda isqabtaan ayaga ka daran abow dhoofa saas ku raadsanaysaa miyaa saaxaw war ma haysiine dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda adduunka hortaalay waqtiga ay dhacaysaa la cadeeyay waxayna bilaabanaysaa bisha September ee sanadkan marka nimayan waxaan ku tali lahay dadka Soomaaliya way qayb galaya dad wax og inay noqdaan laakiin hadii la geeyo ilmo yar yar oo qurba joog oo qabaarmoog oo xiirxiiran waana la ka guuleysanaya war dadkan xiirxiiran waxba ma oge quuradii baddeena iyo dhulkeena dadka ka noolaa u xil saaran wariya baddan oo Soomaaliya kan waa isku haysato ana ka waxalinaysa buda amhaarka kano badlaan ka hayt inoo gaato fadaasa war amhaar maahana waa oromo asagaana bad u baahan war ma haysiine halgan dagaal xorriyadoona ka dhacay awlayba halgan ahayd inay xorriyadooda u halgamaan waa sax war halgan Iiraan ay ka tirsan tahay ma taqaanidana dhageyso shabaab ay waxa ku dagaalamay macawisley waxay dhaheen waa ka adkaanay shabaab warkii banyaalay reer baadiyo isku leynayeen ma laga heshii warkii buurha ka dadka badan ka dhamaadeen la heliyay aka walwalin kulli idamaani ka watiraysa waa kale nabad galis war adigu dad waalan baatihiin xorriyadan u dabaaldega toddobaadka xorriyada lagu jiray war taliisagii Facebook waxay soo dhigtay toddobaadkan wadooyinku waa xiriin war nimayo toddobaadka xorriyadan ku jirnaa heeska la yiraahdo aan maal lahasheena mandeeq abwaankii sameeyana waa dhintay abwaan sangubo hal maalin ka horeeyay abwaan saxardiid maxamed la oran jiray cid soo hadal qaadana ma aan arkin Allah u naxariistay marka xorriyada loo dabaaldegayo iyada nafteeda ma la isku xaqiraya war mandeeqdaada sheegaas intii mar hore la goorisay bariid ilmo lanka daradi runta afka ani la ku qabi ma qarka mandeeq ani waa la qadi war nimayo waxa la yiri dadka yaga go'doonkiyo ku jira guri madoobaad dadka yaga cadaawuhu garbiyay lana gumaadayo dadka yaga sidii loo gadiyay loo gagabinayo dadka yaga la ganay ee la gubay lana garaafeeyay dadka yaga gubaysugu hantiyay ee gacmaha laabtay dadka yaga xabsiga lagu guray dawgi laga gooyay xornimay u gaardinahayaan ma aha shay garahe geedda looga jeediyo macnuhu ganacsi weeyaan war gurigaaga Allah bi'iye Soomaaliya lama gumaysane hadda yaalna gumaynin afkadi lama gumayshiyay war ya macnuhu hakadiisa war ma anaga gumaysan karta wala gumaysina ma anaga gumaysan karaa maxaa على ابو